بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقال يا نبي الله إن أبنائي هؤلاء يريدون أن يحبسوني عن هذا الخير. أحبتي في الله، waxaanu ku soo jirnay kitaabkeeni suwaru min xayaati asaxaaba ridwaanullaahi calayhim ajmaciin. waxaanu soo gaarnay darsiga 4tanaad ee kitaabkeenna. waxaan dhexda kaga soo jirnay qisadii saxaabiga la yihahdo camar bnuljamuux, isagoo ilmihiisu ay dhaheen aabbow, adigu dadka ilaahay uu u cudur daaray baad ka mid tahay, iska joog, dagaalkan aada u soo diyaargarowday ka har, annaga ayaa dagaalamayne. waxay noogu dambeysay odagiio hadalkoodii aada oga carooday, kadibna aaday nabiga calayhi salaatu wasalaam isagoo ku dacweeyey. faqaala wuxuu yidhi ninkii camar bnuljamuux ahaa, yaa nebiy allah, alla rasuulkiisiyow, nebigi allow, inna abnaa'ii wiilashaydu haa-ulaa'i oo kuwaas ah, yuriiduuna waxay doonahayaan an yaxbisuunii inay iga xabaasaan oy ii diidaan can haada alkhayri, khayrkan iyo dagaalkan fadligiisa iyo khayrkiisa inay ii diidaan bay doonahayaan. wahum wiilashaydu yatadaracuuna waxay xujaysanayaan, waxay ku marmarsoonhayaan oo markay ii diidahayaan ay qiil ka dhiganayaan bi-annii anigu acraju inaan ahay mid dhutin hayo, mid jiis ahoo naafo ah inaan ahay ayay cudurdaar iga dhigayaan. wallaahi eebbaweyne ayaan ku dhaartaye, innii anigu la arjuu waxaan rajaynayaa an ata'a inaan kula joogsado. wadigu waa ku istaagid, an ata'a inaan ku istaago oon kula istaago bicarjatii lugtayda naafada ah, haadihi oo tan ah, aljannata jannada inaan ku dhutiyo oon ku joogsadaan doonahaya. lugtan ay qiil iga dhigayaanoo lugla-aan baa taho waad jiisaysaa ay leeyihiin, inaan jannada ku dhutiyo oon ku dhexboodaan rabaa buu yidhi, hamigiisa aada u sarreeyo. faqaala arasuulu calayhi salaatu wasalaam, suubanaha waxa uu ku yidhi liabnaa'ihi, camar bnuljamuux wiilashiisa wuxuu ku yidhi, dacuuhu, war aabbihiina daaya oo dagaalka ha ka reebina oo faraha ka qaada. lacala allaha eebba ayaa wuxuu mudan yahay casa qaalib ahaaye wajalla weynaaye, yarsuquhu inuu ku irsaaqo ashahaadata shahiidnimo inuu ilaahay ku irsaaqo oo dagaalkaas uu ku soo geeriyoodo ayuu allaah mudan yahay. ee wuxuu yidhi suubanuhu, ninkaan dagaalka ka reebina. lacallada marka allah subxaanahu wa tacaala uu isticmaalo ama nabiga uu isticmaalo inta badan xaqiiqay noqota, laakiin marka dadka kale isticmaalaan waa iska tamani iyo rajeen wey, waxaa laga yaabaa wey markay dadka kale isticmaalaan, laakiin suubanu markuu isticmaalo xaqiiqay noqotaayo xaqiiqo wey inta badan. lacala allaha casa wajal eebbaweyne waxa uu mudan yahay yarsuquhu inuu ku irsaaqo ashahaadata shahiidnimo. fakhalluu way daayeen canhu xaggiisa idcaanan u hoggaansamid daraaddeeda liamri rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam, suubanuhu amarkiisa iyo taladiisa iyagoo u hoggaansamayo ayay aabbahooda fasaxeen oy faraha ka qaadeen si uu dagaalku u galo. fakhallow way sii daayeenoo way banneeyeen canhu xaggiisa, isagiiyo dagaalkiiba isu banneeyeen, idcaanan hoggaansamid daraaddeeda iyo khuduucid iyo fulin ay fulinayaan liamri rasuulillaahi sala allahu caleyhi wasalam. wamaa in asifa ma uusan soo dhowaanin waqtulkhuruuji bixitaanka xilligiisa iyo wakhtigiisa, xataa wadaca ilaa uu sagootiyey camar bnuljamuux saxaabiga la yidhaahdo zawjatahu xaaskiisa uu sagootiyey, wadaaca mufaariqin ku tegahayo faaruqayo sagootintiisa
mufaariqaas oo laa yacuudu aan soo laabanaynin. markii ay dhallinyaradii u ogolaadeen inuu dagaalkii aado, waxa uu bilaabay intaanan la bixin inuu xaaskiisa la dardaarmay. wuxuu yidhi anigu waa baxayaa mana soo noqon doono. wakaas haddee ilmaha agoonta ee korso oo dhaqaalayso. waa uu la dardaarmay aan iscafinno, inaanan dib dambe isu arkin baa laga yaabaa. aakhare iyo jannadii baan kaaga horeeyaa. xaajiyoy reerkaada dhaquu yidhi. wamaa in asifa, asifadu waa dhowaansho, asifat ilaasifa laysa laha min duuni illaahi kaashifa. wamaa in asifa mayna soo dhowaanin waqtulkhuruuji bixidda waqtigiisa, xataa wadaca ilaa uu sagootiyey camaru bnu ljamuux. camrun waaway wadataa, waawdaas camarkay la socotaa, mar walba waan hilmaamaay. waawda waxaa la yidhahdaa faariqatun bayna camrin wa cumar. marka la qorayo cumar iyo marka camar la qorahayo ayaa lagu kala saaraa, waxayna la socotaa camrintay la socotaa. cumar hadday tahay waawda waa laga jaraya. zawjatahu buu la dardaarmay ayuu muxuu ahaa sagootiyey, wadaaca mufaariqin mid faaruqaya sagootintiisa oo laa yacuud aan soo noqonayn. huma tajaha wuxuu qaabilay ila alqiblati, kacbadii buu qaabilay. wa rafaca kafayhi, labadiisa gacmood iyo calacalood buu kor u qaaday ila samaa cirka. wa qaala wuxuu yidhi allaahuma arsuqnii, ilaahu igu irsaaq, ashahaadata, shahiidnimo ilaahu igu irsaaq. walaa taruddanii, ilaahu ha ii soo celinin, ilaa ahlii reerkayda ha ii soo celinin, khaa'iban xaal aan ahay mid hoogay oo lugo-ay oo aan soo shahiidine soo laabtay anoo ilaahu ha ii soo celinin. u fiirso, ilaahay buu baryayaa, gacmihii buu kor u taagay isagoo dhahaya ilaahu shahaado igu irsaaq. shahaadadan waa inuu dagaalka ku dhintay ogow. shahaadadii warqadii la sisiinay maaha, tani waa warqad janno wey. walaa taruddanii, ilaahu ha ii soo celinin ilaa ahli reerkayda, khaa'iban anoo hoogay oo hangoobay oo lugo-ay. oo lugo-as muxuu noqonayaa waa inuusan dhimanin, isagoo nool uu soo noqdo, taasuu diidan yahay. huma indalaqa, waa uu dhaqaaqay, yaxiidu isagooy koobayso bihi isaga abnaa'uhu, wiilashiisa ay ku geedaaman yihiin, ay isweer ka hayaan oo dhinacyada ka socdaan. wiilashiisii athalaathatu, saddexda ahaa. wiilashiisa saddexda ahaa baa dhinacyada ka socdo. dagaalkii buu aaday. waa nin naafo hade, waa in aan laga ag dheeraanin oo garab loo noqdo. iyo wa jumuucun, jamaacooyin kabiiratun weyn oo fara badan oo min qowmihi tolkiisa ka mid a bani salama, dad fara badan oo qabiilkiisa reer bani salama ah iyo wiilashiisa ku geedaanaa odaygani. sidii buu dagaalkii ku aaday. walamaa xamiya, markuu kululaaday watiisulmacrakati, dagaalka dabkiisa markuu kululaaday, dagaalka markuu holcay wey. dagaalka tinaarkiisana watiiska waa la dhihi karaa. markuu dagaalka kululaaday oo u shidmay. walamaa xamiya, markuu kululaaday watiisulmacrakati, dagaalka foornadiisa markay kululaatay, oo dagaalku aada u kululaadaa laga wadaa. watafaraqa annaasu, dadkiina ay ka kala tageen can rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam, rasuulka allana dadka ay ka kala carareen. waxaanu ka sheekaynayna waa ghaswatu uxud. qiso dheer bay leedahay, qaar ka midan aynu ku soo marnay kitaabkii kan ka horreeyey. saxaabadu markay khilaafeen amarkii nabiga calayhi salaatu wasalaam, oo 50kii nin ee nabiga uu difaac ka dhigay ay meeshii uu nabiga fariisiyey ay kasoo tageen, waa tii khaalid ibnu waliid dhabarjabin uu ku sameeyo kabtayda maaragtay ka dhacday oo nabiga laga kala cararay calayhi salaatu wasalaam. watafaraqa annaasu, dadkii ay ka kala tageen can rasuulillaahi salawaatullaahi calayh. shuuhidda waxaa la arkay camaru bnu ljamuux ninka la yidhaahdo ayaa la arkay, yamdi isagoo socdo, fi raciili alawal, safka hore isagoo ku jiro. wayahibu, isagoo boodahayo haadahaya ayaa la arkay calaa rijlihi, lugtiisa alsaxiixati fiyoobeed, wathban, boodid isagoo ku boodahayo. ilaan lug buu naafo ka ahay, hal lug baa u fiyoobeede. markay dadku saxaabadii yacni suubano ay ka kala carareen, 12 ruux baa ku soo hartay nabiga calayhi salaatu wasalaam. dad yar baa nabiga ku soo haray. marka dadkii nabiga difaacay buu ku jiray calayhi salaatu wasalaam. ninkan waxaa la arkay isagoo marka safka hore sii gelahayo oo lugtiisa fiyoweyd ku duulahayo ayaa la arkay. shuuhidda waxaa la arkay camaru bnu ljamuux oo yamdi socdo,
fi raciili alawal kooxdii hore isagoo ku jira safkii hore, wayahibu isagoo duulahayo boodahayo calaa rijlihi saxiixa lugtiisa fiyoobeed wathban boodid, wa huwa isagoo yaquulu dhahayo innii lamushtaaqun ila aljanna, innii lamushtaaqun ila aljanna. innii aniga ayuu leeyahay ilaahay baan ku dhaartay, wa huwa isagoo yaquulu dhahayo innii anigu lamushtaaqun waxaan u hilowsanahay ila aljanna, jannadaan u hilowsanahay oon ciil u qabaa. innii anigu lamushtaaqun ila aljanna, jannada ayaan u hilowsanahay wey, inuu noqdo ma doonayo. cadowgii buu dhex galay. wa kaana waraa'ahu gadaashiisa waxaa socday ibnuhu wiilkiisa khallaadun khallaad aha, wiilkiisaa gadaashiisa socday. waxaa kaloo la dhihi karaa wa kaana waraa'ahu hortiisa waxaa socday ibnuhu wiilkiisi ayaa ahaa khallaadun. kelimadan waraa'a ah laba macnay leeda, hor iyo gadaal baa loo isticmaalaa. labadana qur-aankay ku soo aroortay iyadoo horey loo isticmaalay, iyadoo gadaal loo isticmaalayna qur-aankay ku soo aroortay. macnahaas labada macno marka midkaa doontaad ku fasiri kartaa, waxayna u badantaha asalkeeda uu yahay in gadaal loo isticmaalo. marka meeshay u badanta inuu ku fasirna wa kaana waraa'ahu gadaashiisa waxaa socday ibnuhu wiilkiisa khallaadun khallaad ah, khallaad baa gadaashiisa socday. wamaa zaala shaykhu sheekhi kama zuulin iyo wa fataahu wiilkiisii dhallinyarada ahaa waa khallaade yujaalidaani inay dagaalamahayaan oy difaacayaan can rasuulillaahi salawaatullaahi calayhi wasalaamu, suubanuhu inay difaacayaan oy gaalada la dagaalayaan kama ayna zuulin. xataa kharaa ilaa ay dhaceen labadoodaba sariicayni xaale ay yihiin kuwo la legday, shahiidayni oo laba shahiid ah, calaa ardilmacrakati goobtii dagaalkan ay ku dhaceen. laysa muusan ahayn bayna alibni wa abiihi, wiilkii iyo aabbihii uma dhexaynin geeridooda ilaa laxadaatun ilbiriqsiya ayaa u dambeysay. suubanahay difaaceen, safka horay galeen, hal mar baa la isla dilay wiilka iyo aabbihii. wamaa in wadacat ma aynan dhigin almacrakatu dagaalkii awsaaraha culeyskeeda ma ayna dhigin. awsaartu waxaa laga wadaa dagaalka iyo mashquulkiisoo dhammaaday baa laga wadaa culeys. wamaa in wadacat ma ayna dhigin almacrakatu dagaalkii awsaaraha culeyskeeda ma ayna dhigin oo ma ayna joogsanin oo dagaalkama qaboobin baa laga wadaa. xataa tadaca alxarbu awsaarahadi wey. xataa qaama ilaa uu joogsaday rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam, nabiga eebba ayaa istaagay ilaa shuhadaai uxud, dadkii uxud ku shahiiday buu nabiga calayhi salaatu wasalaam u istaagay. liyuwaariyahum si uu dadkii ugu asturo turaabahum ciidoodii ugu gediyo uu xabaalo wey, dadkii inuu xabaalo nabigu u joogsaday. faqaala liasxaabii, dad badan oo qiimo badan baa meesha lagu le waa taqaanaan, 70 ruux ayaa meesha lagaga dilay muslimiinta. faqaala liasxaabihi, nabiga asxaabtiisa wuxuu ku yidhi khalluuhum, saxaabadan shahiiday daaya, bidimaa'ihim dhiigooda u daaya oo ha dhaqina, wa jiraaxihim dhaawacoodana u daaya, meelaha dhaawacana faraha ka qaada. fa ana anigu ashahiidu mid u marakacaya ayaan ahay calayhim dushooda maalinka qiyaamo. anigaa markhaati u ah, dharkooda un ha lagu kafno, dhiigga yaan laga dhaqin, mana lagu tukanino waa taqaanaan lagu tukan maayo shahiidku mana la dhaqo mana lagu tukado. huma qaala suubanuhu wuxuu yidhi maa min muslimin qof muslima ma jiro, muslimkaasoo yuklamu la dhaawacayo fii sabiilillaah, diinta alla koryeelideeda lagu dhaawacayo, ilaa hadduuba jiro jaa'a wuu imaanaya yowma alqiyaamati maalinka qiyaamo ayuu imaanaya, yasiilu xaal uu qulqulayo daman dhiig uu qulqulayo, dhaawacii gaaray dhiiggiisii qulqulayu imaanaya. allownu midabka dhiigga ka lowni zacfaraani, zacfaraan midabkiisoo kalow. zacfaraanku waa gaduud aad u quruxsan, sida zacfaraanka midabkiisii oo kale isagoo dhiiggii shahiidka uu yahay buu imaanaya. wariixu xagga urta dhiiggana ka riixil miski, miskiga udeegiisoo kale isagoo buu imaanaya. dhiiggii jugtii gaartay dhiiggiisi baa qulqulayo. dhiiggaasi midabkiisa midab zacfaraan wey. haddaad ursatana dhiig ur baa lagu ogaaya, kan ma uraya wuu soo carfaya sida miskiga oo kale. huma qaala suubanuu wuxuu yidhi idfanuu xabaala camar bna aljamuux maca cabdillaahi bni camr bni xaraam, ninka la yihahdo maciisa la xabaala. waxaad xabaashaan camar bnu ljamuux iyo waxaad isku qabri gelisaan cabdillaahi bni camrin ibni xaraam.
jaabir ibni cabdillaahi aabihiis wey. jaabir saxaabile aabihiis oo cabdillaahi ibni camar ibni xaraam ah, labadaas qabri isla geliyuu yidhi. maxaa yeelay faqad kaana waxay ahaayeen mutaxaabayni, laba isjecel bay ahaayeen allah dartiisa, mutasaafiyeyni oo saafi isu ah. fi dunya adduunka markay joogeen laba ruuxoo saaxibo ah oo isjecel ilaahay dartiisa ayay ahaayeen. qabrigana saaxibaha looga dhigo oo qabriga laisla geliyu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam. labadaas nin oo dadku ilaahay dartiisa isu jecel inay ahlu janno yihiin buu nabiga noo sheegay. oo dadkii 10kii maxaa ahaye 7 carshuraxmaan harsanaysay wuxuu nabiga ka mid ka dhigay warajulaani taxaabaa fillaah ijtamacaa calayhi watafaraqa calayh. laba ruux alle dartiisa isu jeclaaday, ku kulmay jeceelka alle, kuna kala tagay baa ka mid ahaa. labadoodaa laisla xabaalay. jaabir wuxuu leey muddo kadib waan ku qanci waayey in aabbahay qof kale uu qabri kula jiro. 6 bilood kadib baan qabrigiis intaan qodaan ka soo saaray, isagoo sidii maalinkan qabriga gelinayni ah ayaan arkay buu yidhi. waa soo bixiyo kadibna meel kalean ku xabaalay. saxaabadu qabriga ayaa dhib ahaa, maxaa yeelay 70 ruux oo dhimato shahiiday in la xabaalo aad bay u adkaatay. kadibna dadka qabrigaa isla gelgelinayay, 2 iyo 3 baa qabriga loo gelinayay. hadday duruuf imaatana waa la yeeli karaa dadku. ninka nabigu weydiinaya qur-aan badan buu dhahayay, 2 ruux ee qabriga laisla gelinayo kooda qur-aanka badan buu nabiga qabriga ku hormarinayay. taasna ku darso oo fadliga qur-aanka uu leeyahay. radia allaahu allah ka raali noqdo can camar ibni aljamuux iyo wa asxaabihi, asxaabtiisa allah ka raali noqdo, min shuhadaa'i uxudin, uxud dadkii ku shahiidayna ah. wa nawara allaha u nuuriyo lahum iyaga fii qubuurihim, qabrigooda allah u nuuriyo. halkaas ayay ku dhammaatay qisadii saxaabigii ahaa camar ibnu aljamuux. ilaahay isagii asxaabta ha ka raali noqdo. cabdullaahi ibnu jaxshin baan geli doonaa. wallaahu aclam.